warbaahinta Al Jazeera ayaa afka Carabiga ku qortay maqaal dheer oo ay ciwaan uga dhigeen Soomaaliya dalka gargaarka u diri jiray Sacuudiga. waxaa maqaalkan qoray Mucaad Maxamed Al-Xaaji Al-Axmed oo ah qoraa Carbeed oo u dhashay dhulka Falastiiniyiinta. maqaalku waxa uu ku bilaabanayaa sharaxaad ku aadan xaaladda Soomaaliya ee maanta oo waxa uu leeyahay waxa laga maqlo dalkaas haatan ayaa ah burcadbadeed, hogaamiye kooxeed, kooxo hubeysan, dambiilayaal hubeysan oo ay adag tahay in maanta wax wanaagsan laga maqlo Soomaaliya. qoraaga waxa uu sheegay in inkastoo horumar la taaban karo uu jiro, haddana waxaa weli maskaxda dunida ku qufulan dhibaatada Soomaaliya oo intooda badan Soomaaliya tusaale ahaan u soo qaata dadka dunida marka ay markaasi dhigayaan in dal kale uu qaado wadada burburka. balse Soomaaliya maanta wareersan kala tagtay, dhiigga qabyaalada dhex dabaalatay weligeed sidaan ma ahaan jireen. xornimadii kadib Soomaaliya waxaa loogu yeeri jiray Switzerland Africa maxaa yeelay dadkeeda waxa ay lahaayeen xoolo badan iyo beero wax soo saar fiican leh. qoraaga waxa uu leeyahay Soomaaliya waxay hormuud u ahayd dimuqraadiyadda iyo awoodda oo si nabad ah la isugu wareejiyo wixii ka horeeyay afgambigii Siyaad Barre ee dhacay 1969. Maxamed Siyaad Barre ayaa xukunka Soomaaliya la wareegay 1969. qoraaga waxa uu sheegay in xilligii ay dhibaatada badan ka jirtay dhulka muslimiinta qofkii lagu badbaaday uu ahaa hogaamiyihii boqortooyada cadaaladda Axmed Ibraahim oo Soomaalidu ay u taqaano Axmed Gurey. waxa uu qabriga nebiga ka difaacay isbahaysi ka dhaxeeyay Xabashida iyo Boortaqiiska, kuwaas oo doonayay inay qabsadaan magaalada Madiina, sidoo kalena doonayay inay qaataan qabrigii Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee si ay ugu gorgortamaan magaalada Qudus oo ay muslimiinta haysteen. ugu dambeyntii Axmed Gurey waxa uu suurto gashay in uu ka guuleysto oo uu dilo hogaamiyihii Boortaqiiska. maqaalka waxa uu soo xigtay qoraaga taariikhda Cabdiqaadir bin Cabdallah isaga oo arrimo badan oo xasaasi ahna sidoo kale taabtay. qoraaga ayaa waxa uu sheegay in nuxurka maqaalkiisu uu yahay in Soomaalida maanta sidaan ay ahaan jireen dad hodan ah oo Sacuudiga gaarsiiyay gargaar, inkastoo uu sheegay in dadka qaar ay doonayaan in arrintaasi ay dafiraan. Soomaaliya ayaa burbur iyo dagaal sokeeye gashay kadib markii dalka laga saaray Maxamed Siyaad Barre. qoraaga waxa uu sheegay in intaan la helin batroolka Sacuudiga uu ahaa dal faqiir ah, dadkiisana waxa ay ku noolaayeen timir iyo caano oo kaliya, waxaana taariikhda ku cad in abaar ballaaran ay ku dhufatay Sacuudiga sanadkii 1909. waxay dadka cuni jireen caleenta si ay noloshooda u badbaadiyaan. xilligaasi Soomaaliya aad ayay qani u ahaayeen oo xitaa waxa la wariyaa in qofka intuu neef qasho uu beerka kaliya ka cuni jiray, inta kalena uu tuuri jiray. taariikhdu waxay qoraysaa in culimada Soomaalida ay xilligaasi fadwoodeen in xoolo sadaqa loo diro dadka Sacuudiga, waxaana xigtay in ganacsatada Soomaalida ay bilaabeen inay halkaasi u raraan xoolo nool, raashin iyo xataa dahab. Soomaaliya maanta waxay ku sugan tahay xaalad aan wanaagsanayn. waxay ahaan jirtay dimuqraadiyad aan xasuusta ka bixi karin, maantana waxay noqotay maamulo yaryar oo kala taagan. waxay hore u ahaan jirtay aag cagaar ah oo leh doomo dunida oo dhan u kala goosha oo kaalmo gaarsiiya, hase yeeshee hadda noqotay dal ay ka jirto gaajo iyo rafaad, balse taariikhda aan la hilmaami karin.